maanta ah Arbaco oo ku beegan taariikh 12 bisha 10aad 2023 waxaa dhacday ciyaar final ah oo wax xamaasad badan ka dhacday xiriyaha qaxootiga dhaab gaar ahaan xirada Dhagaxley waxaana lagu dheelay garoonka ugu weyn ee xirada Dhagaxley ka dhisan magaciisa la yiraahdo Baghdad Stadium waxaana labada kooxood ee final isku yimaadeen ee kala ahaayeen AL Legends versus Atlantic Boys ee ka soo baxo section F iyo D sidaas darteeda labada kooxood ayaa ciyaarta qaybtii hore iyo qaybtii dambe lagu galnastay ever halka labada kooxood ee fursado dahabi ah iska qasaariyeen halka ay labada gool haye ay fursado dahabi ay badbaadiyeen wallow ciyaartii isla aaday Real ku dhamaan ciyaartooyda wada tuurtay oo lismari waayay idan qaybta xiga ayaan ku daawan doonaa muuqaalka dhameystiran Real cajiib ah iyo dadkii hore ee buloonta ku dambeysay oo Legends ah oo garoomada wili ku jiro wili aan ka qoosanin ayaad muuqaalkan kaga bogan doontiin haddii aad u hore markii horeysa ana soo muuqatay fadlan waxaan igu codsanaa inaad muuqaalkan like noo saarto subscribe saaro gambaleelkana furo si aad mar walba u hesho warbixinadeena taxanaha ee aan soo gudbino mar kasta sidoo kale ciyaartan oo xamaasad badneed ayaa sidoo kale kaamirad qarsoon waxay qabatay dadweynihii oo iyo ka soo qayb galay taageerayaashii labada kooxood iyo dad hore ee Legends ah oo lagu cazumay maanta ay xalfadan finalka ah gabagabada ah lagu cazumay ayaad muuqaalkan kaga dawadatiin